nagi isku day aan sameynay markaan la hadalnay walaalaheen shantii xubnood labana madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo baarlamaankuna ay ahaayeen isku aragti madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii saddexaadna waxa weeye dhinac bay ahaayeen khilaafku wuxuu ka yimid asalka ahina waa shantaa xubnood weeye galmudug sida ay ku timid nin waliba waa ogyahay waxaa leeyahay haruub ninkii soo lisa la ogyahay ninkii rabaa ha sido yacni dhibaato intii u soo gashay ee soo gaarsiisay meeshaan يعني ولا وذوق قف ولا بوجه لكن لما وضع حسكره قلمذوق دباتها أول بي وحي للي عيسي أفر دباتو أي للي عيسو لسكراد هيدو صريح لسارني وحيتها أفر دباتو دقموي بدن أو كمل رير قلمذوق رير قلمذوق نحق له شباب هايستا oo 7 sano 8 sano ka ilma dhalay oo la haysta oo aan la oran wariyaha naga maqan ismiin lama oran war maxaa naga maqan lama oran intii wax dhisatay baa qaban dhuursato madaxaas gashatay galmudug markii la dhisay labay uu ka qaybsanay qayb baa maqan waxa maqan walaalaheen ahlu sunna wal jamaaca oo degmooyin iyo maamul dhinac kala jira oo ahayd maalintii halkan lagu unkay in la doono ahayd weli inaan lagu guulaysan waxa weeye waa nasiib darro kale waa meesha laga dhutinayo qayb bay ka tahay waxaa nasiib darra maantii la dhisay ilaa maantay inaysan galmudug wax horumar samayn kana siib kana saar kana tuur kana celi kana bedel ayay ku jirto waxa nasiib darra afraada raggii loo dhiibay maamulka inay markaan shalay ku dhexdhexaadinay oo markii hore gacanta isku saarnay oo la wada qadeeyay oo la isxaal siiyay oo la isdhudhunkaday oo la yiri aan xalay ku kala seexnay wixii aad ku wada shaqayn lahayd oo la isku qabtay si aysan u laaban si hore loogu socdo inaan road map u samaynay wixii lagu heshiiyay in la sameeyo saaka markaan isku nimid waxaa naga hor timid ma wiin ogaan inaan madaxweyne yahay ninkii madaxweyne ku-xigeenka ماذا مدحويناها ولاد النواب شيء مايا ومعانو لقوينيسي إلى دراد يا الشرع يا حال أنت دمنيني ما تراول ماشي مدحوين إلا اسكتك كان أيام بابا لقى مغنايا متكلة أجيتك كوتشيله أوله كان ما أنا وأنيقا أنا ويوضع wuxuu yiri labada wiil harag ku diriraya isdilaya oo odagii dilay oo hadda ka horna aan ka sheekeeyay oo odagii leeyahay maxaa wiilasha u dilaysaa oo yiri haraga yani goroga la dili doono haragiisa sanaada laga bixin doono sumasha ay dhashay yani haragaas anaa qaadanaya asna wiilku waa diray wiilashii wuxuu yiri haraga ay ku dirirayaan hooyadooda sida gacantaas odaguna habartu u rabaa meel jinni xerag jinni soo meesha uma muuqata harag neef maqan haragiis yaa wiilasha ku direen odagiina ku dilay habartina wax ma haysato ciddii kala dhimatay waa meesha galmudug taa galatay waxaan u soo jeedinayaa codsi kulligiin waa idiin soo jeedinayaa galmudug walaalayaalow yaanan cidna ku eedayn fiiri adiga waxaaga adiga ka hadlaysan haddaan annagu
caadada iska ah siyaasadda inaa hadba meel la aado hadba qof in la xagto hadba madaxweyne hadba guddoomiye ku-xigeen hadba maya war waxa hadlaysan adinka idinka hadlaysan yihiin maamulada agtiinaana kama hadlaysnaa xamarna kama hadlaysnaa cid kale idinka hadlaysan yihiin marka gurigiinna yaa idinla dhaqaaya 11 muxuu ahaa deegaan doorasho odayaasheedii iyo waxgaradkeedii halkan joogay iyo gabdhaheedii iyo wixii la ogaay oo ku bixiseen intaa isku tagtaan caawe yaan meeshaas laydinka dumin waxaana ka bilowdaan 5 intaa u yeertaan ninkii inka amar qaatana wax u dirsada ninkii idinka amar diidana awoodii gacantiina ku jirtaa baarlamaankan Soomaha leeyahay waxbu geedaha ku kariyaa waxba inta ku kar wixii keentay ay Soomaha horta adigu saada markii hore aad waxa nin waliba fakaray Allah ilaa yaa cid dharbaax yaqaan yaa kan yaa cid u warxun horta kan intu nacayn la asaga xagga iska geena xalaad yani waxa aan u warxumana waxay tahay waxaan u socday in wax idin hagaagaan 5 ninna idin kama adkaan karaan 80 nin oo baarlamaankan in kama adkaan karaan odayaalow inta iyo gabdho iyo waxgaradow iyo culumo iyo dhalinyaro inta isku tagtaan oo shir qabsataan galmudug aad adunku u talisaan oo dhulka inka maqan oo la haysto xoreysa iyo kuwa maqan inaad nabad ku doontaan inaad isku baadi goobtaan maamul fiican la dhisataan wixii isku dubaridataan adina uma maqnaa alna uma qodna waa mahadsantiin